السلام عليكم أخيارتا سودواذا. السلام عليكم أخيارتا شرفت له سودواذا وردق دقا يعني ذين هيا إمينك مقالة مقدشو موقع كان سيشير قرايا مركو هرادي كعد صنايا مقالة مقدشو قوردو قرح وين أيا قلقلي أقارك مدحتويدا سوماليا قرحاسي وحوها قرح قاري لو أديك سدي وحانا لقود نفتي إريد لغا قالو هوتيل كلو يقانو إسوائيل oo ah hotel caan ah oo ku yaala magaalada Muqdisho hotelkaasi iminka waxa gudaha u galay dabley hubeysan oo ka dhex dagaalamaysa gudaha hotelkaasi sida ila kala duwan ay goordhow ii xaqiijiyeen dableyda inta aysan hotelka galin gaari qarax laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay dhinaca dambe ee hotelka Israel intii taqaan hotelkaasi wuxuu ku yaalaa iridda weyn ee laga galo madaxtooyada Soomaaliya iyo tiyaatarka qaranka inta u dhaxaysa ayuu ku yaalaa hotelkana waxa aad loogu yaqaanaa dadka siyaasiyiinta ah xildhibaanada wasiirada iyo dadka siyaasadda u dhanduleela oo hotelkaasi isugu taga iminka dad badan oo la hadla waxay ii xaqiijiyeen iminka in gudaha hotelka ay ka dagaalamayso dabley hubeysan kooxdaasi weli lama xaqiijin karo laakiin al-shabaab ayaa inta badan hoteelada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka dhex dagaalama oo gala halkaasina saraakiil ciidan iyo dad shacibba ku dhexlaaya inta badan sida dhacda marka ilaa iminka waxa xaqiijin karaa in hotelka Israel la galay oo xabad ay ka dhaxdhacayso ila kala duwan ayaa sidaas ii xaqiijiyay waxaana la maqli karaa oo dadka ka dhowdhow ay ii sheegayaan in xabad rasaas culus laga dhex maqlayo gudaha hotelka Israel ee magaalada Muqdisho ku yaala dadka Muqdisho way wada maqleen qaraxa jugtiisa oo ahayd qarax aad u xoogan sababtana waxa ahayd in gaari weyn qaraxa loo adeegsaday waxaana lagu dhuftay qaybta dhabarka dambe ee gawaarida lagu baakimo ee hotelka Israel loo yaqaano hotelkana sidaan hore idinku sheegay dad aad u badan ayaa isugu taga gaar ahaan marka arrimo siyaasadeed ay wadan ka taagan yihiin iminkan wad ogtiin khilaaf weyn ayaa ka taagan dawladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo arrimo badan gaar ahaan arinta batroolka la isku hayay ayaa taagneed bariyahanba oo madaxda shirar aan kala joogsi lahayn ayay lahayd bariyahanba gaar ahaan hotelkaasi marka xaalado siyaasadeed ay halkaasi ay tagaan marka iminka inta xaqiijin karo waxa iminka ay yihiin in gudaha hotelka la galay oo rasaas ay ka dhaxdhacayso hotelka loo yaqaano SYL idinkana aqyaarey si sheer garay muuqaalkan asxaabtiina la wadaaga rasaasta wili way dhacaysaa sida ila kala duwan ay sheegayaan oo gudaha hotelka xabada ka dhacaysa qaraxana ila iminka lama xaqiijin karo qasaaraha laakiin muuqaalo aan goobta ka helay waxay muujinayeen in burbur weyn uu hotelka u geystay qaraxaasi iyo guryaha ka agdhowdhow gaar ahaan iridda madaxtooyada Soomaaliya oo ida lafteeda la ii sheegayo in burbur uu gaaray maadaama qaraxa uu ahaa qarax aad iyo aad u xoogan oo magaalada Muqdisho daafaheeda laga wada maqlay marka haddii aad joogto magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarkan hotelka Israel ilaa iyo Xabarweyne waxaan kugula talin lahaa inaadan ka agdhawaanin agagaarkaas maadaama ay rasaas xoog leh ka dhacayso oo gudaha hotelka Israel ay ku jiraan dabley hubeysan oo ka dhex dagaalamaysa gudaha hotelkaasi qasaaro ayaa jiri kara maadaama hotelka ay dad badan ka cunteynayeen dad badanna ay ku nastaan bil ramadaana lagu jiraa hoteelada dadka siyaasiyiinta iyo dadka dhalinyarada ahba way u casho doontaan way ku nastaan waa lagu sheekaystaa arrimaha siyaasadda looga hadlaa gorfeen badan lagu sameeyaa marka waxaan alla ka baryanaa inuu dadkaas ku amaansado laakiin warka hadda aan xaqiijin karo ayaa ah in xabad culus ay ka dhaxdhacayso gudaha hotelka SYL loo yaqaano ee magaalada Muqdisho hotelkan intii aan garanaynin haddaan mar kale ugu celiyo wuxuu ku yaalaa agagaarka madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan iridda weyn ee laga galo madaxtooyada ee ka imaanaysa dhinaca ceelgaabta dhinacan kalena waxaa ka xiga wadooyin waaweyn gaar ahaan wadadan aada dhinaca tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee degmada Xamarweyne dhankan kalena sayidka ayaa iyo guriga baarlamaankii hore ayaa ku yaala ilaa iyo dabka wadada aada
intiina taqaana intii aan aqooninna sidaas ayay ku fahmi kartaa. marka akhyaar sharafta leh ilaa hadda rasaas culus ayaa dhacaysa. hadba waxa kusoo kordhana muuqaalo kale ayaan idinkaga soo sameyn doonaa oo update ayaan idinka soo dhigi doonaa. idinkan waxaan idinka codsanayaa inaad pagekan follow dhahdaan, muuqaalkana aad share garaysaan. haddii aad su-aalo qabtaan qaybta commentiga waad kusoo qori kartaan, oo wixii xoga aan ka helo halkaan aad kula wadaagi doonaa. commentiga qaybta waan aqri doonaa haddii aad su-aalo qabtaan. intaan ka ogahay iminka hoteelka waa lagu jiraa oo dagaala ka dhex dhacaya, rasaasaa dhacaysa, qarax weynaa dhacay. dhimasho iyo dhaawac lama xaqiijin karo, laakiin qaraxa intaan muuqaal lasoo duuba ka arkay burbur weyn u geystay oo hoteelka dhinaca baakinka gawaarida aaday u burburtay oo gaariga ayaa lagu dhuftay. intaasi waan xaqiijiyey. khasaaraha laakiin lama xaqiijin karo maadaama haweenna ay tahay waqti dambe. xilliga muqdisho iminka waa 4 saac habeennimo. lama xaqiijin karo khasaaraha ilaa iminka, laakiin wixii kusoo kordha ee khasaare ah ama wixii warar ay kusoo kordha weerarkan tooska hadda u socda, idinka ayaa noqon doonta aqyaasha sharafta leh dadka ugu horeeya ee xogtaas hela. SYL Aamina SYL wuxuu kasoo horjeedaaba madaxtooyada Soomaaliya. madaxtooyada aaday u ballaaran tahay haddaad ogtahay. wuu kasoo horjeedaa madaxtooyada, gaar ahaan qeybta iridda weyn ee laga galo ee ka imaada dhinaca ceelgaabta ayuu hotelka kasoo horjeedaa. haddaa tilmaam kale kaa siiyana hotelka dhinacan dambe wuxuu kasoo saarayaan beerta nabadda. haddii aad taqaano beerta nabadda ayuu dhinacan waqooyi kasoo saaran yahay hotelka SYL, haddaad tilmaamtaas ku fahmi karto. maxamed weli rasaas culusaa ka dhex dhacaysa gudaha, oo ciidanka hotelka iyo dableyda hubaysanba ay isdhaafsanayaan sida aan xogta ku hayo. saciid, qarax wuxuu ka dhacay hotelka SYL ee muqdisho haddaad nala soconin markii hore. liibaan, adigana waa mahadsan tahay. mas-uuliyiin way ku jiraan, waa hubaal, sababtoo ah hotelkan cid kaleba ma tagto. dadka mas-uuliyiinta ayaa 90% hotelkan degan oo ku nasta. siyaasiyiintana way isugu yimaadaan, way ku sheekaystaan ilaa ay waqti dambe ayayna ku gaaraan inta badan. xogtaasaan kaa sii karaa hotelka SYL. hotelkanna dad mas-uuliyiinaaba degan caadiyan intaan ka warhayo, laakiin ma habboona inaan sheego magacyada mas-uuliyiintaasi, laakiin mas-uuliyiin ayaa degan intaan ka warhayo. haddii su-aalo kale aad qabtiin intaan ogahay waa idin jawaabi doonaa hadduu eeba karaal noqdo. idinkana asxaabi ay muuqaalkan sii sheergaree. maxamed daahir waa mahadsan tahay, allah amaansado. adna weli xabadda way socotaa oo rasaas culusa hotelka laga maqlayaa, maadaama dabley ay gudaha gashay. marka ilaahay ha amaansada inta ku jirta, laakiin waxaan qiyaasayaa in rasaasta waqti kala qaadi karto haddaanan ciidanka amniga soo afjarin waqti hore. qaliil waa mahadsan tahay. intaan ka warhayo gudaha rasaasa ka dhex dhacaysa, waxaana ilaa aan ku kalsoona ii sheegeen in dabley huweysan gudaha gashay. farmaajo ma degan yahay. sidaad ogtihiin madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muqdisho joogaa, laakiin ma degana agagaarkan hotelkaba ma degana. aad uu kaga fog yahay halkuu degan yahay. hadda ma ku jiraan dableyda? way ku jiraan saaxiib, intaan xogta ku hayo way ku jiraan. sacdii khasaare ma la sheegi karo walaashay, waa waqti hore, ma la ogaan karo. sababtoo ah haddayba rasaasta socotaa. marka ilaahay ha amaansada inta ku jirta. cabdulaahi xaadoole khudbadiisa ma dhageysan, laakiin waxaan qiyaasayaa in qaraxan iyo weerarkanba uu yahay weerar aada u culus. amiisha waa mahadsantaa walaashay. waa ogahay qarax aada u xooganaa, adiga le ma ahan dadka muqdisho oo dhanaa ka wada qeyliyey. ilaahay ha ammaansada inta ku dhimatay, inta ku dhaawacantana ilaahu bowdha. saciid haruuse, dhaawac iyo dhimashaba hadda ma xaqiijin karno, laakiin hubaal waaye in dhaawac iyo dhimashaba dhacayso maadaama qarax weyn uu dhacay, dableyna ay gudaha hotelka gashay. marka
aan ka warsugno ilaah amniga iyo ilaah caafimaadka. haddii khasaare iyo dhimashaba sheegaan waa idinla soo wadaagaya insha allah. aadna waa mahadsantaa walaashay. dadka xamar ilaahay subxaanahu watacaala ha u booga dhayo, dhibaato badan way qabaan laakiin waa laga gudbi doonaa insha allah. intaasaan rabaa akhyaare commentigiina intaasaan kusoo koobayaa. idinkana waxaa idinka codsanayaa muuqaalkan inaad ii sheer garaysaan oo asxaabtiina kale u dirtaan. waxii abdheed aan helana halkan ayaan kusoo gudbin doonaa. saaxiib yuusuf ma la xaqiiji karo koox ilaa hadda, laakiin inta badan waad og tahay oo soomaaliya marka hotel la galo inta badan al-shabaabaa sheegata, laakiin weli hadda cid sheegatay ma hayno. waa mahadsantihiin, halkaasaan kusoo gabagabeynayaa. cabdulaahi wax badanaa qaldan saaxiib, laakiin aniga maadaama suxufi ahay ma raba inaan arrimahaas horu galo. waa mahadsantihiin, halkaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo.